waxaad ka taqaanaa galaha kaalinta koobaad ee imtixaanka dugsiyada sare ee dalka oo uu noqday wiil reer galmudug ah. daawade waxaan ku xasuusinayaa muuqaalkan inaad laygarayso qaybta commentiskana aad wiilkan ugu hambaliyeyso sina sheergaree muuqaalkan oo gaarsii bulshada Soomaaliyeed si ay u wada daawadaan guusha wiilkan reer galmudug ah uu keenay. Cawaale Axmed oo Cali Barre oo ka qalin jabiyay dugsiga sare ee Waaberi oo ku yaala magaalada Gaalkacyo Galmudug ayaa kaalinta koobaad u galay guud ahaan ardaydii sanadkan gashay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad ee dugsiga sare. Cawaale oo ah arday dadaal badan in muddaana ku soo jiray halgankiisa waxbarashada ayaa ugu dambeyn hantay hamigiisii ku aadanaa in maalin uu meel sare ka soo muuqan doono, wuxuuna sanadkan galay kaalinta koobaad guud ahaan Soomaaliya isagoo si gaar ah guul ugu soo hooyay dugsigii uu ka baxay ee Waaberi iyo magaalada Gaalkacyo oo sanadkan hanatay kaalinta koobaad ee imtixaanka. maamulka dugsiga Waaberi ee Gaalkacyo ayaa inoo sheegay in Cawaale uu ahaa arday akhlaaq badan, aqoontiisana ku kalsoon, kuna darsaday wadaninimo iyo dal jacayl. ugu dambeynna ay farxad gelinayso inuu ka dhabeeyay hamigiisii waxbarasho guul taariikhi ahna gaaray. wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee Soomaaliya ayaa sheegtay in Cawaale Axmed oo Cali uu keenay natiijada imtixaanka 95.43 sidaasina uu kaalinta koobaad ku hantay heli doonana deeq jaamacadeed oo dalka dibadiisa ah oo free ah. waxaana wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ay sheegtay in Galmudug ardaydii ku sugnayd ee u fariistay imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ay tiro ahaan gaarayeen 2302 arday, waxaana dhacay 2 arday, inta kalena way baaseen. muuqaalkan sii sheergaree daawade, waana mahadsantahay daawashadaada.